waraxmatullaahi wabarakaatu. waa idin salaamay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtiin yareed iyo mar kale iyo video cusub. waxaan idinka codsanayaa haddii videogan idin soo gaaro inaad subscribe, like, share, comment qurux badan aad ka soo bixisaan. like fara badanna iska saara. like-tu waxay gaarsiin kartaa videoga meel sare. maanta maxaan idin wadaa? maanta waxaan idin wadaa qiso aad iyo aad u cajiib badan. qiso aad iyo aad u cajiib badan aan idin wadaa. hadduu Ilaahay yiraahdo waxaa jirtay hooyo dhashay 3 wiil. hooyadaasi waxay laheeday lacag aad iyo aad u fara badan. waxay aheeda hooyo qaniya oo lacag badan haysato. waxay dhashay 3 wiil, wax gabar maysan dhalin. 3dii wiil way waaweynaadeen, waxayna degeen meel kale oo guriga hooyo ay degantaa aan ahayn, wayna guursadeen. hooyadii waxay noqotay gabow oo waxay damacday inay wiilasheeda la noolaato. sababtoo qofku markuu waayeel noqdo waxa oo kaliya oo ku tashto waxa waaye caruurtiisa. waxay damacday inay caruurteeda la noolaato, balse intaynan caruurteeda la noolaanin waxay sameysay tijaabo walax la yiraahdo. waxay damacday inay tijaabo ka qaado caruurteeda qofka ay la noolaan karto inta cimrigeeda ka dhiman, ama gabadha kaliya oo hayn karto oo wiilkeedu qabo. hooyadii waa baxday oo waxay tagtay wiilkeeda curadka ahay u tagtay ayadoo u wado hadiyo aad u qurux badan. hadiyo aad u qurux badan ay u qaaday. waxayna u tagtay wiilkii ay hooyada u aheeday oo curadka u ahaa iyo gabadha u qabay. albaabkay u garaacday, lama ogeyn inay imaanayso ama sooma sheeginba marka hore. albaabkay u garaacday. albaabka markay u garaacday waa hooyo, waa la soo dhaweeyay, waxaana la dejiyay qolka martida. qolka martida markii la dejiyay waxaa dhacday waagiyaa baryay oo hooyadii habeenkii waa jiifatay. waa la soo dhaweeyay, si qurux badan aa loo soo dhaweeyay. hooyadii habeenkii markay jiifatay waxay samaysay gabadheedii waagu hadduu baryay waxay dhahday gabadha wiilkeedu dhalay, hooyo ii keen biyan ku weyse qaato. biyihii weyse qaadkaa loo keenay. markii weyse qaadka loo keenay way weyse qaadatay, wayna dukatay. biyihii kasoo haray waxay ku daadisay sariirtii ay ku jiifatay xalay. waxay wacday gabadhii, waxayna tiri hooyo xalay waan isku kaadiyey, tanna waa shaqada waayeelada. gabadhii way qaylisay oo waxay dhahday erayo aad u xuxun. waxaana soo baxay wiilkii ayada ay dhashay oo gabadheeda qabay. markuu soo baxay eray xumuusan dhihin gabadhii, hooyaday maxaad u caayay muusan dhihin. hooyadii go-aan ay qaadatay. gabadhiina waxay tiri joodariga waa inaad dhaqdo, waana inaad qallajiso. hooyadii joodariga way dhaqday, wayna qallajisay, wayna iska tagto. waxay ku laabatay gurigeedii markay ku laabatay way baxda. maalintii dambe hadiyo aad u qurux badan ay qaaday. waxayna u tagtay wiilkii curad ku xigeenka ahaa. markay u tagtay si fiicana loo soo dhaweeyay, hadiyo qurux badan ay guddoonsiisay. waxaa la jiifiyey qolka martida. markii la jiifiyey hooyadii waagaa u baryay, waxayna wacday gabadhii wiilkeedu qabay. waxayna dhahday hooyo ii keen biyan ku weyse qaato. biyihii weyse qaadkaa loo keenay. markii loo keenay way weyse qaadatay, wayna dukatay. biyihii kasoo haray weyse qaadkana joodarigay ku daadisay sidii oo kale. markay ku daadisay waxay wacday gabadhii, waxay dhahday hooyo xalay waan isku kaadiyey, waana shaqada waayeelada. waxaan kaa codsanayaa inaad joodariga aad qallajiso, soona nadiifiso. gabadhii way qaylisay oo hooyadii waxay ku dhahday erayo xuxun oo loo adkaysan karin, kuna habooneyn in waalidka la dhaho. wiilkii ay gabadha qabay oo hooyada ay dhashayna wuu soo baxay, laakiin eraxun gabadhii muusan ku dhihinin, ama hooyaday maxaa ugu qaylinaya ma dhihin. hooyadii joodariga way qaaday, wayna soo nadiifisay. meeshiisiiyayna kusoo celisay. go-aanayna qaadatay inay gurigeedii u laabato. gurigeeday u laabatay. waxayna u tagtay maalinkii dambe wiilkii u yaraa, caruurta 3 wiil u yaraa ayay u tagtay gurigiisa ayadoon u sheegin inay u imaanayso. waxayna guddoonsiisay hadiyo aad u qurux badan. waa la jiiftay oo habeenka waa la soo dhaweeyay. waxaana la jiifiyey qolka martida sidoo kaleetood. waxayna samaysay waagu markuu baryay gabadhii wacday, waxayna tiri hooyo biyo weyse qaada ii keen. biyihii weyse qaada gabadhii way u keentay, wiilkeedu qabay. way weyse qaadatay, wayna dukatay. biyihii kasoo harana waxay ku daadisay isla sidii joodariga. joodari markay ku daadisay waxay wacday gabadhii wiilkeedu qabay. waxayna dhahday hooyo ii imow, waan isku kaadiyey xalay, joodariga iga soo nadiifi. gabadhii way imaaday, joodarigayna qaaday. hooyadii waxay tiri iyadoo tijaabo wadato
anigaa nadiifinayo hooyo iska daa. waxay dhahday gabadhii, hooyo meeqaan korkiina kusoo kaadinayna, hooyo maxaa ka macnaa haddaa aniga soo nadiifiyo. gabadhii waxay qaaday joodarigii wayna soo nadiifisay, meeshiisiyayna kusoo celisay. hooyadii waxay wacday gabadhii mar labaad, waxayna tiri hooyo waxaan leeyahaa saaxiibkan leeyahana wuxuu u baahan yahay dahab waana cabirkaaga. waxaan rabaa inaad dahabka gacantaada ku jira aad iisoo bixiso si aan saaxiibtay u siiyo. gabadhii dahabkii ay soo bixisay, hooyadiiyayna gacanta u gelisay. hooyadii way qaadatay dahabkii wayna baxday oo waxay aaday suuqa. lacag la-aan ma hayn hooyada oo waxay ahaaday qof lacag badan haysato. suuqay tagtay, suuqii markay tagtana waxay soo gaday dahab iyo waxa naagaha isku qurxiyaan oo fara badan. miiskay soo saartay, waxayna isu wacday 3 gabdhood oo iyadu ay wiilasheedu qabeen. waxayna dhahdo mii maqlaysiin gabdhahayga, haa aniga joodariga ma ku kaadin ee waxaan ku shubay biyo ayay ahaayeen. tijaabadiina kuma guulaysanina, gabadhayda oo keliyaha ku guulaysatay. waxaana la noolaa karaa inta cimrigaygu ka dhammaado gabadha wiilkayga yar oo qabo. saas ogaada, dahabkiina gacantay ugu shubtay gabadhii wiilka yaraa qaba. qisadan markaan idiin soo jeedinayo, ujeedada aan ka leeyahay waxay tahay caruurta adiga aad dhashay markaad yaryar yihiin way kala jecel yihiin hooyadood. qof baa jecel, laakiin markay waaweynaadaan oo caruurtu ay koraan, caqli kale iyo fikir kale iyo naag cusub iyo waxbaa kusoo biiraayo. haddaad jeceshaa inaad kala barato caruurtaada adigoon wax u dhimaynin inaad tijaabiso, waa wax xaqa. adigoon wax u dhimaynin oo aadan tijaabadaasu aysan gurigiisa ku dumaynin, waxna aadi ka codsanayaa hooyooyinka. hooyo waa lafdhabarka guriga, waa qofka keliya oo ubadka barbaariso oo la dhihi karo waa qofka caqligeeda aan ku soconno. marka qofka hooyadiis u nooshahay amba aabihii u nool yahay, waa inuu si wanaagsan oo u dhaqaaleeyo, marna uusan ku daynin qofka asaga oo guriga keensaday. sababtoo hooyadaa waa hooyadaa, xaaskaaguna waa xaaskaaga. gabdhaha Soomaaliyeed oo wiilasha quruxda badan soo raacay, hooyaa soo korisay wiilasha, waa la dhalay, waa la soo koriyey, meesha ay hadda joogaanna waa la soo gaarsiiyey. qofna iskama soo gaaro meel, iskama soo weynaado. waa la soo kabiyey, waana la soo koriyey, wax walbaana loogu soo dulqaatay. marka waa inaad waalidka aad wiilka ku qaba iska dhaqaaleyso si aad adiga caruurtaada ay u noqdaan caruur duceysan oo caruur fiican haddii aad xumayso hooyada wiilka dhashay, adigana caruurtaada way ku xumeynayaan. waa wax hubaala, sababtoo weelkaad adiga qofka biyaha ku siisaa, berina adiga biyaha lagugu siinaya. waad mahadsantihiin. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.